ifkuwa waa dhowr cishe intii aan orod ku jiray ninkii in yar ii tarow abaal baa kuu hayaa mar laba la ilaawi karin. waxaan u mahad celinayaa asxaabtii sharafta lahayd kasoo fal celiyey iyo kuwii dhiirigeliyey horow socodka iyo inaan horow sii socday igu dhiirigeliyey dhammaan aad iyo aad mahadsantihiin. videoga u dambeeyey asxaab ayaa ku kaftantay falcelin kasoo fal celiyey. waxaan jeclaystay inaan falcelintii aan eego wixii aan ku dhihi karo ama jawaabtaan sii karana aan isku dayo ku soconno. falcelinta koobaad kolley falcelintu way badan tahay oo dadka kasoo falceliya aad bay u badan yihiin. dhowr qof ayaan isdul taagi doonaa inaan akriyo, aniguna waxaan isku dayi doonaa sidoo kale inaan wixii aan dhihi karo ama jawaab ah ama tala ah inaan dhaho. falcelinta koobaad waxay ka timiday kolley waan boodboodi doonaa. dadka aan ka tegana raaligelin ayaan ka bixinayaa. intisaar maxamuud iyadu waxay dhahday real waayo anaa horta arkay qofka marka aad ka aamustid asaga ku raaligelin muddo kadib. waa run, waa warkii aan ka sheekeynayna imaka oo qofka marka aad ka aamustid halkii aad hadal badan ku dhihi lahayd isaga ayaa dareemi doono isbedel ka dhacay, isagaana ku raaligelin doono. aamusku waa dawada ama solutionka dhibaatooyin badan oo dadku ayna dareemeyn. halkii aad hadli lahayd inaad aamusta ayaa ku fiican. soomaalidan hore waxa u dhahday hadalku intuu feedhaha ku jiro ayuu faa'iido leeyahay. hadalkaagu intuu feedhaha dhexdooda kugu jiro aad aamusan tahay ayuu faa'iido leeyahay. marka aamusku waa dawada ama solutionka dhan ee mashaakil badan oo maanta aan ku dhici lahayn. aad ayaan kugu mahad celinayaa intisaar maxamuud falcelinta quruxda badan la nala soo wadaagtay. mar labaad falcelinta xigta nimca queen ay ka timiday iyadu waxay leedahay waan ku fahansannahay nimanka ayaad nagu diraysaa, waan diidnay taladaada. waa aragti kale oo iyaduna bini-aadamku inay iskhilaafaan waa sunno kowniya. anu waxbaan qabaa, adiguna waxbaad qabtaa, inaan kala ra'yi duwanaano waa bini-aadamtinimada iyo inaan ku noolahay adduunka. aad ayaan kaaga mahad celinaya. sidoo kale fikirkaaga bal nala wadaag haddii aad aragtid fikir ka duwankayga oo laba qof oo xidhiir ka dhaxaynayay kadibna iskhilaafay si xidhiirka ugu soo noolan lahaayeen. haddii aad haysid nala wadaag walaasheen nimca queen. aad ayaan kaaga mahad celinaya. sidoo kale falcelinta xigta waxay ka timiday aragsan nicima cali ayay magaceegu yahay. waxay dhahday waa sax hadalka, wallaahi inaa xoogaa la aamuso ayaa qiimo ku yeelan doontaa. waxoogaa inaad aamustid ayaad qiimo ku yeelan doontaa. hadal kaloo waxa ahaa haddii uu hadalku u yahay lacag, aamusnaantuna waa dahab. lacagta waad garanaysaan oo koonfargalki iyo farantiga wax laga sameeyo. hadduu kaasi lacag yahay, uu lacag ka samaysan yahay, maadada lacagta ka samaysan yahay, aamusnaantu waa dahab. sidoo kale waxaan leeyahay walaasheen aragsan nicima aad ayaad u mahadsan tahay. fikirkaaga quruxda badan laa nala wadaagtay oo aamusnaantu waxay dawo u tahay mashaakil badan ku dhici lahayn ama solution u tahay. aniga shaksi ahaana in badan baan isticmaalay. sidoo kale waxaan jeclaya inaad isticmaali doonto. aad ayaad u mahadsan tahay mar labaad. falcelinta kale ku xigta waxay ka timiday sahra geedi oo iyaduna dhahday waa sax mahadsanid. aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ku qanacday fikirka aan soo gudbiyey, waxna kuu taray. adiga ayaa ku leeyahay, adiga ayaa mahadsan. mar labaad mar saddexaad. falcelinta kale sii xigta waxay ka timiday boqorada dumarka. boqorada dumarka halkaaga ayaad ku maamuusan tahay. waxay dhahday maasha allah waa runtaa wallaahi walal qaali. sidoo kale aad ayaad u mahadsan tahay igu raacitaanka fikirkaas. in badan in wax kuu tari doona ayaan rajeynaya insha allah. falcelinta kale sii xigta waxay ka timiday queen. dumarkii o dhan boqoray noqdeen. boqorada sidoo kale waa ku salaamayaa. iyadu waxay dhahday qosol ay ku bilowday. qof haddaaban isbedel ka dareemo waaba u aamusaa. hadduu soo hadlo hata waa taba baahanahay
gameka inaad ciyaari kartid. haddii aad kusii adkaysidna qofku kaa tegayaa. kusii adkaynta xaddaafana looma baahno waxaa loo baahan yahay inaad gameka ciyaari kartid. marka aamus loo baahan yahay aamustid, marka lagu daawanayo telefoonka aad ku daawatid, marka loo jawaabayna aad u jawaabtid. boqorada mar labaad. falcelinta kale xigta waxay ka timiday Sucaad Barre, iyadoo aragti ka duwan ayay leedahay oo ah haddii aan rabin xiriirka inuu halkiisii kusoo noqdo ama kusoo laabto ka waran maxaa dhici kara. waa runtaa walaashay, mararka qaar waxaa dhacay inay dadku kala qancaan, mashaakil badan dhaco, ama qofkani bilowgii marka xiriir yeelanayseen aad u arkaysay inuuna kuu qalmin, marka mashaakil dhacana aad rabin inuuba kuusoo laamo. adduunku waa isbarasho. qofku marka qofka baratid waxa kaaga soo baxayo inuu qofkan yahay qof aad la sii socon karayso noloshaada, iyo inuu yahay qof hore kaaga dhammaan doona. soomaaliduna waxay dhahdaa ii hadal hanku barte. macnaha oo ka dhigan dadka miisaan lama saari karo, lama dhihi karo qofku intayo kiilo fiican yahay, kalarkiisu waa noocaas oo fiican yahay, laakiin waxaa lagu qiimeeyaa, miisaanka lagu qiimeeya waa hadalkiisa iyo akhlaaqdiisa. qofku markaad isbarataan waxaa dhici karta inuu wejigiisa koobaad ee qurux badan oo kugula dhaqmo. muddo markaad wada joogtiinna aad ogaatid wajiyaashiisa kala duwan, kadibna aad qaraar qaadatid inuu xiriirkiisu uu horay kugu sii socon. kaasoo kale qaraar oo laga qaadan karaa. waa kugu raacsanahay. bye bye miskiinkaas. falcelinta kale sii xigta waxay ka timiday Aflax Qaali, oo iyaduna dhahday waxaas hadda dad qaadana hadalkan ayuu dad qaadan doonaa oo ku dhaqmi doonaa ama rumaysan doonaayo xidhiidhadoodii iyo mashaakil bay geli doonaan ay ka wadaa. waxaa dhici karta walaashay Aflax, haddii aad adigu ama xiriirkaagu stable yahay ama uu degan yahay, dad waxaa jira mashaakil ku jiro ay dhibtan haysato. marka kaagu hadduu degan yahay udaa dadka isku daweyn karaya ama taladana ay wax ku tarayso. aad ayaan kusoo salaamaya walaashay Aflax. falcelinta kale xigta waxay ka timiday Taliso, iyadu waxay dhahday Taliso ina Axmed waxaagu waa hays ixtiraamina, wax sheeg waa la isku leeyahay adeerow. waa runtaada, wax sheeg waa la isku leeyahay. in la is ixtiraami waayana kama rabo. sida kalaaba ixtiraam darra jirtaa, inaad adigu qof aad qadarin iyo jacayl iyo wanaag aad u haysid, isaguna waxba uu kaasoo qaadi waayo. ixtiraam darra ayaa ku jirta. xuquuqdii qofkaas ayaa rabnaa inaan usoo celino, ima uu magaalka ka galo ama inuu si nabada ugula noolaado, oo karaamadii bini-aadanka ilaahay karaamadii inay meesha taalo. inaad fahantaan filaya walaashay. aad ayaan kaaga mahad celinaa Taliso Axmed. falcelinta xigta oo ay soo dhiibatay Habi ayaa dhahday haddaan asagoo dhan waayo ka waran, waar ha iwaalin. waa dhacdo oo kulley annaga xuquuq qof bini-aadana ka maqan ayaan u raadinaynaa. la helaa la waayana waa mid meesha taalo. haddii aad dulmiga aad dul qaadan karaysid, qofku siduu doona kaa falayo aada ogoshahay, Habi adiga nasiibkaaga. haddii aad karaamadaada iyo xuquuqdaada bini-aadantinimo aad rabti inaad soo ceshatidna, fikirkeenaan la qaadani. fikirkaagana xor ayaad u tahay. waxaaga waa iska dhooban kuusan kartaa ama waad iska haysan kartaa, macnaha waxa ka wada. aad ayaan ku salaamaya Habi. falcelinta xigta oo naga soo gaadhay Garissa Bila ayaa dhahday muslimiin ayaan nahay, waa inaan kala roonaana. haddii qof kastiba qofka kale ku daydo waxba ma hagaagayaan. dhiirigelintan qaldan dhalinyarta mustaqbal doonka ah kada. ta koowaad Garissa Bila, aad ayaan kaaga mahad celinayaa soo dhiibashada falcelintaadan quruxdadan leh. ta labaad waxaan kula wadaagayaa, waxaa jira cilmi dhan oo jaamacada lagu barto ama adduunka laga aqoonsan yahay, oo ama hay-ada leh oo loo shaqeeyo, oo la dhaho human resources ama tanmiya bashariya. wuxuu inta badan dadka la hadlaa dhiirigelinta si u noolaan lahaayeen, qofka siduu u noqon lahaa qof independent ah, oo qof ku xidhnayn, xor maskax ahaan, noloshiisa iyo maareynta noloshiisa. tanna waa aan ka hadlayna waa mid kamid a.
haddii adigu aad u arkayso noloshaadu inay stable tahay, wax dhibaato ay jirin, dad waxaa jira dhibaato ay haysato oo maanta garan laase uga baxaan messagkeenu ama fikirkeenu wuxuu ku wajahaya kuwaas inaan aan tala siino. adiguna sidoo kale aragtidaada waan kugu qadarinayna, xor ayaad u tahay, waad kasoo dhiiban kartaa markasta noocay doonta ahaato, xataa waad soo dhaliili kartaa. dhaliishuna wax badan ay noo taraysaa inaan anaku dib iskugu laabno oo wixiina wax kasoo saxno. aad ayaan kaaga mahad celinayaa. waa falcelintii xigtay iyo Garissa Bila. asxaabtan waxaan sheegayaa sidoo kale YouTube ayaan leeyahay sidoo kale, iyo Facebook page oon kusoo qoro aragtiyaashayda iyo dhiirigelin iyo wixii aan rabo bulshada inaan gaarsiiyo. waxaan iga codsanayaa inaad iyakana aad siyaarataan oo iga soo habaysaan sidaad halkan u qurux badnaysaan iyo iyakana usoo qurux badnaysaan. tan iyo intaan hawada ku kulmi waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabtii soo dhiirigelisay soo bilowgii ilaa maanta halkan aan taaganahay. waxaan jeclahaynaa in insha allah sidan iyo si ka tayo badan la inaan usii wada shaqayn doono. haddii aad rabtaan tobicyo gaar ah ama arrimo gaara inaan kasoo hadlano waad isoo qoraysiin, anigana si tafaqtiran ayaan uga soo hadli doonaa insha allah. inayn raali gelin doontana waan jeclahay. aad ayaad mahadsantihiin asxaabteydii. tan intaan hawada ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.